wanaagsan daawadayaal dhammaantiinba ku soo dhowaada barnaamij gaar oo marti noogu yahay ustaad Axmed Naaji Sacad. dabcan magaca markaad maqashaan uma baahna faalayn iyo falanqayn oo waxaan filayaa gabi ahaanba inaad garanaysaan cidda uu yahay Axmed Naaji Sacad. Axmed Naaji Sacad waa abwaan, waa fanaan, waa muusikiiste, waa sidoo kale laxan sameeye. waxa uu marti noogu yahay barnaamijkeena qubanaha VOA oo aan jeclahay fankiisa, suugaantiisa, waayihiisii uu ku soo dhex jiray muddada dheer ee fanka Soomaalida dhinacyadiisa kala gedisan in aan la soo qaado sidoo kalena aan siyaabo kala duwan ani asagu barnaamijka uga sheekaysano. marka ugu horeysa waxaan jeclahay bal inaad ila soo dhaweysaan Axmed Naaji Sacad. Axmed Naaji Sacad ku soo dhawow magaalada Minneapolis. aad baad u mahadsantihiin maxamuud, adiga iyo baada TV-gan oo iyo barnaamijka aad tabinaysid markasta waan la soconnaa idinkii VOA-daba. aad bay farxad noogu tahay inaad barnaamijka VOA aad marti ku noqoto. sidoo kale gobolka Minnesota ayaad haatan booqasho ku joogtaa. inta aynaan fankaaga iyo sheekooyinka faraha badan ee aan jeclayna wadaagi doono aniga iyo adiga jadweynuhuba aanan u gelin, bal marka hore waxaad iga warantaa safarkan aad ku timid magaalada Minneapolis iyo dabcan sida aad ilaa hadda magaalada uga heshay. waa mahadsantahay. waxaa si caadada eeba markasta waxaa leega waxaa meelaha oo ku nool walaalahayaga qurba joogta ee dibada ee shirarka ku qabtaan, shirarka qaranka ah, diyaasbarada hadda koor Turkigan ka qayb galay iyo meel kasta haddii xataa Soomaali pen meeshii jirto iyo meey howlaha oo horumarinta iyo waxa howlaha qaranka laga wado oo walaalahayaga dibadda joogo soo habeeyaan ama isku soo dubaridaan. waa leega waxa halkaana leega soo wacay Minnesota, waxay soo waceen dadka qaban qaabinaya shirkan diyaasbaraha ee la yiraahdo higsi israaca. haddii aan ku soo laabano marka barnaamijkeena maanta oo aad martida ku tahay, marka ugu horeysa waxaan jeclaan lahaa bal si kooban inaad iga waranto taariikhdaada fanka iyo sida aad fanka caruurnimadaadii ku soo bilowday. anigu waxaan ku dhashtay xamar walaalkeeyo, marka waxaan ku soo barbaaray Muqdisho. waxaan beedhadana waan in yar baan joogay ku soo koray. aabahii baa xagga joogayo kulahaa beero iyo marka anigoo yar xamar baan iskuul talyaani iyo laga qoray af carabiga ayaan ku jirnay. ardayda iskuulka ayaa waxaana la xafidi jiray hees intaanan dhalan calanka, intaan xorriyadda la qaadan hees guubaab aan qaaday jirnay af carabi oo guubaabin ah iyo hees wadani Soomaaliya toosooda hadda la qaado ayaa ka mid ah. dirsoonka dheegada ayaan tegi jirnay anagoo yar meehaan ka heesi jirnay. ma intay imaanin siyaasiyiinta oo khudbada jeedinin dadka annagaa maa weeli jirnay. sidaasaan fanka ku soo jeclaysto iyo fanaaniinta markaasaan dhegeysan jiray oo aadkaan u jeclaa maxamed jaamac joof iyo khadiija cabdulaahi dalees oo hadda nool cimri dheer allah siiye waan salaamayaa, iyo qaasin hilowle allah u naxariiste, suufi cali iyo allah u naxariiste. waa badanyihiin fanaaniinta. marka waqtiga ayaan jeclaa heesahoodii ayaan maaragtay markasta dhegeysan jiro heerkooda inaan gaaro ayaan doonayay. insha allah ilaahay riyadaydana markaas marka aad xilliga aad ka hadlayso gobonnimo doonka dalku iyo dadku ay ku jireen xorriyad la raadinayay, fankuna dabcan uu ahaaba laftiisu wax ku cusub dadka iyo dadka Soomaaliyeed. haddaad markaas sawirna siiso aniga dadka ku daawanaya qaabka uu markaas fanka Soomaalida u ekaa. waagaas raadi Muqdisho un baa la dhegeysan jiray, heesaa ka bixi jiray oo qaaraami iyo laakiin iyo kooxa banaadiri baa jiray, riwaayadaha banaadiri lagu sameeyay jiray oo xisbiga banaadirka lagu sameeyay jiray, iyo kooxa yar jiray oo magaalada markaas ka jireen oo riwaayadana banaadiriga dhaqanka sameeyay jiray iyo riwaaya qaab hindi u eg heesaha hindida la bedeli jiray iyo marka waagaas saasaas ayo kooxdo marka banaadirigan ku biiro la dhihi jiray Luna Somala, magac talyaani waag waxaa la yiraahdaa Compagnia Artistica Luna Somala, macnihiisu waxa waaye kooxda dayaxa Soomaaliyeed ayaan ku biilay. markaas ka bacday
waxaan la sameey jiray raadi muqdisho maalinka axadda axadda la nasan jiray waagaas jumcada la nasan jirin isticmaal ma dalka maadaama isticmaal dalka haystay ha marka axad kastaba koox baa ka qayb geli jirtay barnaamij la luga baxsi luga baxsi waa koox la arkaa lagu casuumay fanaaniinta sidii heesaha irgala oo kale fanaaniina lagu xulay fanaaniinta luga baxsi lagu xulay oo idaacada ka mid noqday labadii 63 meelaas ayaan idaacada la qorayo aan noqday fanaaniintii ka soo baxay heesaha hirgalay oo la yiraahdo markaas luga baxsi sidaasaan idaacada markaas u galay anoo 18 jir 20 jir marka fanaaniintu waxay ahaan jireen qayb ka tirsan wasaaradda warfaafinta oo markaasi wasaaradda hoorsimaado raadiyaas ka keen laha marka raadiyaas qayb ka mid ah ahaydeen waa tahay sidoo kale Axmed Naaji waxaan la socdaa inaad dabcan ka mid ahayd fanaaniinta raadiyo Muqdisho kuwoodii ugu firfircoona isla markaasina ka mid ahaa kuwii bulshada wax soo gaarsiin jiray mar hadda ka hor aan sheekaysanana dabcan waxaad iga dhawaajisay markii matalan kacaan ku yimid oo kale oo dalka isbedel uu ku yimid habeenkaas sida wax u dhacayeen inaad wax ka ogeyd oo dadkii bil matalan ku baraarugay aad ka mid ahayd sheekada haddaad dib noo xusuusiso marka kacaanka wuxuu dhashay 69kii maalin talaado ahayd 21 Oktoobar talaado ahayd annaka ma ka warqabin runtii marka kacaanka markuu dhalanayay golaha sare waa taqaan yani kadisa kacaan u dhashaa cid ogmale intii afgabi intii markaas oo hawshaas wada ayaa wada dhaartiyo meel ka soo halgamay marka waxay ahaayeen dad marka hore waxaa leeyahay halkeenka bilaabada waxay ka bilaabeen idaacada horta inay qabtaan waa meeshii ka soo fulayay warka idaacada hadana waxay ku xijiyeen hadana iyo baarlamaanka deputati xildhibaan hadana xildhibaan waagas deputati baa la dhihi jiray waxay qabsadeen kow idaacada iyo baarlamaanka markii idaacada markii qabsadeen warba way haayeen furaha si loo kala haayo عدة فريس أرولتي ترانسميسيونها مركي هودا لو درايو ماشي لغا شيدو كل وين هايستي فرنسيولا مركا انيغا waxaan ku jiray studio 4 fureed ninkaas marka ayaga ma ka warqabaan studio 4 maxaajira studio 4 music on bayaan laakiin meesha important waxa way laliska iyo meesha wararka lagu duubo iyo dadka Axmed Naaji fura gurigay baa la soo ogaaday shibis baan deganay markaas waxaan gatay guri oo metrokobia oo iska ma xaleesha markii dibadda qof soo joogsada saasaa loo arkaa way jeexan baqbaq baa jira marka waqti dambe ayaa askar timid labo oo jiib fureed ay rabeen oo stuudioga gurigii bay soo garaaceen hooyadeedii baa kacday oo naxariiste si fiican boqsankii waxay ka fiirsay baqbaqii askar bay aragtay baabuur oo hubaysan maxaa rabtiin Axmed Naaji baan rabnaa maxaad ka rabtiin ma yaano aan sagaan doonayna hooyada waa ii timid iyo oynis maxaad biisay wariyaad soo dishi oo maxaad xaday askar baa noo timid maxaad samaysay waxba ma sameeyay baan ku yiri ayaga maqlaay eed waxba ma sameeyne raali ahow waxyar baan ka rabnaa waan soo celinayna hadaba furaha baan wax kale ka badoonayna korneer ahay ana maxay iga doonaysaa hoob furiya hadii rabtiin maya namari أحمدو وقصو عندنا عيب ما جرت سفيان مركان راعي مركان راعي بابورك أنا وأنا حسنا وأنا جرينا مركان فياد مريني أيها أسكر بدن جيت كحرتي مركان أسكرتي مركي أركان لما بابور نلك الزعلن سد عليها بيني بركة فرتي مركان شو بابورك وحياة مؤذن هاي جوجين قريو جوكسو way joogsadeen nin korneer asaan u sabaxay waa qurac ma qurac baa mar qurac markii qurac liilo way ka banayeen jidka waa marnay hadana baarlamaanka agtiisa joogso waa qansax hadana mara ana waxay qurac iyo qansax maxay luqadan fahmay shaqani waa aamusanay idaacada leeyay markii idaacada aan tagnay waxa arkaa ragii xareed iyo nuux iyo dadkii oo yaaban maxaa dhacay inta laga soo kicay fanaaniintii la soo kicay إذا هذا هريرة شخصو في بيدقناين على السجون هذا كان صاحبكي
meeshaa la keenay kulli waxaan waxba ma jiraan walaalayaalow fanaaniin haddaad tihiin hal heesaan laga rabaa aroortii 6:00 ayaa idaacada la furi jiray hees lagu furo oo lagu ayidayo kacaanka anagana kacaan waa marka hore aan maqleen kacaan maxaa yiraahdaa baan ku dhahay towrad way oo dhalatay xoogga dalka xooggi baa meesha askarti baa haysata si wanaagsan marka heestii waxaa la Axmed Naaji baa laxniga degdeg u sameeya cali sugna isla markii erayada ninka ku wuxuu ahaa isla markii hadii tii meeshaas ka hadal adoo joogtado ka hadlaya golka fuulka ragil markaasuu yiri qor October waa daruur hilaacdayo Soomaalida u da'do ay ku doogsadeen xooggi baa dadaalayo xukunkii dalka haystee annana waa ku raacnay hambalyo diiran hooya marka sidaas kacaanku sidii baan heestii u sameynay dadkii aan barnay يعني فنانينتي مركز وكان هردada ka soo kacay 6:00 marka wadaadkii quraanka Sheekh Maxamed Mahlan hijri min Abdullah Haji Ilmi laha xiriiri aha sifiican Abdullah waxa uu yiri waxa horti markii uu furay 6:00 halkan waa raadi Muqdisho codkii Jamhuuriyadda Soomaaliyeed waxa uu codkii Jamhuuriyadda Soomaaliyeed maanta ma dhihi kartiin maxaanu leenahay codkii ummadda Soomaaliyeed halkan waa raadi Muqdisho codkii ummadda Soomaaliyeed haddana wadaadka si kadib heeskan markaas aan ugu celceliyay saas markuu dhacay dabcan waa sheeko dheer oo waqti badan u baahan kaligeed in laga hadlo waa tahay waxaan dabcan ku soo laabanayaa fankaagii iyo heesahaagii iyo dabcan sidii kala gadisneed u soo shaqeynaysay bilowgii fanka markaad soo gashay oo music iyo heesaha ka qayb qaadanaysay dabcan heesa fara badan oo caan ku noqotay oo dadku ay aad u garanayaan ayaa jira kuwii ugu horeeyay qaado haddaad ila wadaagto marka heesa caan ku noqday waxaa ka mid ahaa heesa horta wacyi gelin ayaan bilaabnay anaka raadi Muqdisho markaan joogno weligaan ilaa haddana waa noqodnaa beernin falo ma barye weligiisna ma baahooda dad maqashid dalabtina waan u qaadi karaa si wacan bal haddaan heestaa bal wax ka maqalno ردكتو ودورتو ودوراريني برقبي لكعو بلاشلي وعنام براني بركمل ردكتو ودورتو ودوراريني برقبي لكعو بلاشلي لعنام براني بيرنين فالو مباريه وديجيسنا مباهودي بيرنين فالو مباريه وديجيسنا مباهودي بدر بدها لو كانوا بدتكو كبحي بربحي سنوا عياني بالمجاري كريم نسبرنو هينا بيت فلانو انكو باهي بحني هابين انفالو مباريه وليسنا مباهودي يا سلام يا سلام طبعا waxaan filayaa hadii inta ummadda dhan ay wada qaadato dadku waxay ka raysan lahaayeen in cid kale la baro marka hadda badarkan oo maraakiibta loo keeno dadka la soo baryay aan diideen waxaan dhulkii waa barwaaqo xilligaas badal oo badahan lagu keeno oo beledka kale ka baxo barbixiisa waa ayaan bis bil hatta magaari xilliga markaan tirinaysan marka goormo haystan xilligaad samaysay waxaan 20 jir baan 20 jir baad marka soo wali calool xanuun ma ahan in hadda waa wadna kala beera iyo dhulkiina imaado wali wixii aan wadna ay gelin bulsho taladii maalintaas aad tiriseen in ilaahay hadda wali la qaadan dabcan waxaad u malaynaysaa inay xanuunkeeda leedahay marka qaarna aad sida u dareemi karto Axmed Naaji hadii aan ku weydiiyo marka waxaad ahayd
lagu oran karaa inaad tahay abwaan ama fanaan ama mulax dhinac kasta waxa la jiray kiyaw Ingiriis dhinac kasta lagu dayaba ee ka shaqeynaya marka su'aasha aan jeclahay inaan ku weydiiyo waxay tahay heesihii banaadirigaad ku jirtay oo dabcan iyaguna aan dabcan ila wadaagi doonto mar dhow dhinacii kale ee hobolladii kale ee waabarina waad ka tirsanaan jirtay sidee kugu suura gashay marka inaad labada dhinac ka shaqeyso adoo hawshii wada weli waxa waaye intaan la dhisin tiyaatarka shiinaha dhisin tiyaatar waxaanu ahaa jiray tiyaatar duuna meel yiraaho oo Boondheer agteeda ah iyo tii banaadirka ah halkaas riwaayada lagu dhigi jiray habeenkii waa tagi jirnay muusikadan aniga u tumi jiray xoogaa waxaan ku fiicnahay gitaarka waa la wacyi jiray subaxiina waxaa idaacadan imaanina 6 barka kooda doortiyaan kana waxay galabtii marka fasaxan leeyahay waxaan tagi jiray marka meehii kale laga waco iyo koox yar baan sameysay oo ilaa Gemini 7 iyo mar waxa la jiray Naaji Orchestra waxaan ka bilaabnay horta number 4 baar ku yaali kadibna Jazeera markii ka aan ka dhashay oo dalkiis dhismay markaas Aruuba la dhisay Aruuba iyo Juba liidana waa ka tumi jirnay iyo waxaa jireen naadiyaal circolo Italiano Italiano hatta ka tumi jireen waxay qabeen meel isku yimaadeen Talyaaniga oo la dhihi jiray naadiga Talyaaniga iyo naadiga Masriga meelaasaan adigu ma aragtay qolta yoomkii baa laga raadinaya qalab iyo waxaas marka waxaan dhalinyarana waayeenoo markaasii sidaasaan kooxdan koox goonina waa lahaa tii tiyaatarkana oo waajibka tiyaatarka weli ma imaanin raadi ma u shaayeen oo shiraadiha markaan gudano on ka soo baxno fanaanka waxa waaye ma ogtahay dadku ma xirno waa bulsho aroosyadana laga waca dad la xasuumay meeshiis waa tageena sidaas ay markii kacaanka dhashtayna oo xilligii kacaankana koox badan jira markaas intaan kacaanka horseed danan magaciisa ciidanka asubtu waxay qabeen koox markaas iyo xooga dalka iyo koox markaa waxaan aasaasin koox dhiraa waa beri kooxda qaranka dad la soo xulay imtixaan baan sameynaya sahir galay markaasaan ku soo biirin folklore dancer ciyaaraha hiddaha dadan idaacadan ka baafinay ciyaarta hiddaha inaan sameynano 30 qof gabdho iyo wiilal waxay fulinayaan waxay bartaan ciyaarada gobolada dhan laga ciyaaro sida hadii dibadaha la tagayo bogtahay gobol kasta markii Kenya gobolada 30 qof la baray dharkii laga qaadahay gobolada wixii banaadir wixii gobolada dhan kooxan asin oo fulinayo wixii gobolada dhan laga ciyaaray aad marka adigu sida aan su'aasha markii hore ku gudbay dabcan taariikh qurux badan aad keentay oo tilmaamaysa sida aad isugu dheelitirtay ama aad dhinacyadan isugu soo gudubtay sidee kugu ahaa marka inaad marna heesihii kale oo caadiga aad qayb ka tahay marna aad maamuleysay kooxdaadii kale adigu aad lahayd oo dabcan markii dambe shareero magaca caan ku noqotay oo heesihii xamariga iyo banaadiriga dhinacaad ka qaadayso dhinacii kalena waa bari la xansameeyay iyo heesihii kalena aad ka qayb qaadanayso arrintaas waa bari waxaa jiray waxaa noo yimid anaka 60ka markii calanka la qaatay walaala Hargeysa kooxdii oo dhihi jiray walaala Hargeysa oo walaalaha iyaga Soomaaliland ka yimideen فنانين آدو قيمة له عبد الله قرش الله ونحرسه كمذا علي سجولة كمذا عمر دولا الله ونحرسه اسمان قعلو محمد يوسف وبديهين مقعيض قولون شيء يوحى فنان محمد أحمد كل الله ونحرسه ضد قيمة له أيام نو يمد يعني وكفى إلي سنة حق السوقانته آديات مركا أنا لحن سمعها والله هي هرجيسنا وعيسى في عنينه كينن مركي رواية سمينينا أبوانه ذي وحي قريان مرها لحن يجان سمينا أنا جن أبوانين هم لهن أو حمرا يجان جوجان أو بدن محمد علي كاري الله ونحرسه وبدين حتى حسين وفارح وكيم يقولي وبدين محمد سليم الله ونحرسه رجاسان كل حجري جري الصومالي حتى هيان كبرتي رنت هذا دربتي في بنادر هورتي أواحكوا مركي رجع نو يجمد وراها يجا نو يجمدين سان هيس والبو قراي هذا هيس كان تشيك جري مركي نقول وحاجر سنسر تشيب وحاجر فافرب وحي حنا ولا ساري جري وحاجر قافنا ولا ساري جري
anigana waa ku dhex jiri jiray guddiga waxaan ka mid ahay laxamiista iyo guddi abwaanada haddii nin fanaan yimaado waxay waa heesa erayadaada noo keen baa la leeyahay erayadiis hadduu fiican yahayna anagaa noola dhiibaa laxamiista keligay ma ahayn cabdulqaadir muusaa jiray ya saciid xaro waa jiray saaxiibkayga waxaa jiray daawud cali masxab saalax qaasim naaji laxamiista waa badnaa yani keligay ma waan u qaybo jirnay marka sidaas aan dhexgalkaas oo isdhexgalnay fanaaniintana walaabaanu ahaynen qabiil ma noqonin dad saaxiibaanu ahayn dad iskala dambeey baanu ahayn meeshaas dhexdaas aan dhexroori jiro af soomaaligii markaasaan si fiican u bartay markaan dhex galay oo muddo badan isla soo shaqeynay heesaha marka aad laxanka u samaysay bilmatalan cali sugul oo kala calafka ku dhufatay oo dabcan cali sugulna wuxuu ahaa kamid ah abwaanintii ugu waaweyn dabcan intaan barnaamij ku jirnaa si gaar ah isaga su'aal kaaga weydiin doonaa marka waxaad iga warran marka heesi ugu horeeyay fan abwaanada ay sameeyeen aad laxanka saartay aad wali xusuusateen maankaaga ka go'in ما هرت على السوق الوطن كل شيء وصاحبكي وحوي كاني وحيس عن سميجر وحاس هاي بدن أو مرة حتى أسرع لحني صوت تورة ميوزك بان وسميجر حتى عليه وحكم إذا وابا بري هي بلسان أروري أبا حسن يوحكم إذا وابدي هي حتكجر أفغلات أقونتوميا ما هو إن هو قف بقشة عيين على تاي بدن بو على السوق اللي ما عرفتي saaxiibkii buu ahaa isla socodjiniyo erayada aad iyo aad markii waxba loo baahdaba asaan anigu la tegi jiray iyo heestii hidiyo ayaa oo hidaha iyo dhaqa hargeysa walaalaha iyaga halkaas ku sameeyeen oo ay noo keeneen dhaqanka hidiyo kale oo cali heestaas hadda hidiyo dabcan waxaa la sheegaa heesihii Djibouti bariga lagu sameeyey inay ka mid ahayd oo dabcan markay dhinaca koonfurta iyo timid adigu aad door ku lahayd qaab hidiyo waxa walaalaha iyaga hargeysa ayaa ayaga leeyahay tii oo Djibouti waa gaar waa sameeytaas tii Djibouti waa laga qaaday anaga ani cali sugul ay rayda bedelnay tii Djibouti oo darayadeeda tii Djibouti sala u qaadi jireen bogaygiyo beer ku tabay baryamaalago ambuka baadi doonkeedaan hayaa uma bareene ambaqa aduyumoya allahubaali waan dhintaa waan dhelmada odhaayahaygaan ma jeclahay waan dhaqaaqay haddaalitiin nagar islaamka soo diwa adoyumoya allahubaali عوس على مساميستين وعد عيدي سوما دكتين أني على شيء ذي أذي عدو يقولوا يا الله وارد طور الله غير جبوتي مركز أديكو المقلي وعد وي حجري سلاحني كان مركز أني على السؤال استغني عناني erayab oo taas oo lamid ah maxaan wacyi gelin aan sameynayna baan idhi waagaas xamar waxaa ka jira waa ogtahay adiga gabdhii iyo wiilashii guurkii baa yaraaday xamar ya isguursigii gabadha markii nin rabta inay guursato waxay leedahay shuruud badan ay ku xirayin waxaan rabaa qalab markaas talyaaniga alaabtiisa taari haddaan alaabta talyaaniga la dhigaynin haddaan waxa la dhigaynin marka waxaan rabnay dadkiina isu keenno oo dhow shuruudan laga saaro waxyaaloodee waxaan rabnaa maaragtay wacyi gelin maxaan ka dhigna marka cali sugula meelaha ii qoray meelaha isla laxanka
قول باي بالي هسه مقعد قول باي قول باي أيام بحني باردة باردة هوين باردة باردة هوين جهد بالو فدي سنجري جهد بالو فدي سنجري انت لو قول دكتا قباتي لقادم جري قوركي سيدا جيد مدري قيانكي ميو قبلامي اللهم يا اللهم علي الله قبلي وحيلين قبلي وحيلين جنيو لا عقبان ربنا جنيو لا عقبان ربنا دعمها كان سوري لهين وقلت كان قشن لهين كنتي نحارين ايو قد مسانا لئيب سنكن بقلان ورقير لحرق كلكي اي قدون سبيل سباسا قولكي كبعي اللهم عليك قبلي وحيلين رجي قدود ذي نغذين يلا قوبت حنا بغيت يلا قوبت حنا بغيت قلبتي والبواء عروس قلبي سنة ومضاهني وقبلي شق البيت امتان بوركي سيدا قيد مدري قيانكي ميو قلبي اللهم آمين علي سوق المركان انت انقود وحان داني عليو مربنا إنان قبله ويلتش الأحظوظي إنان بلايك كأنا أنجي يعني وانا وعي قلن وهي وحان قصو قبينه وناكسن إري عن سمينه ما حان كدينا أبويري يعني الحاد أنا هذه النقطة يعني أنا حقنا عبضنا أنا وحنا فنانين وعي قلن الله قربوا يروح حاد قولي سانسيري حاد قولي رجي قو عشي قبان قبله هنا وهي عبانيان إيا ما قذبتا اسكاله قف كاسو حقو كيمد دادوينو قرطوغا مغا أنسكا دادوينو دادكي عن سير مركز ساسو حانينا على رقيق وحشي قبان رقيق وحشي قبان قبله ويحابانيان قبله ويحابانيان وإيا ما قذبتا اسكاله قف كاسو حقو كيمد دادوينو قرطوغي نقا اللهم بارك dadkan saarin waa iska dheerayn anag dadweynuhu idinka idii taala marka adiga caliba eedi wadi sidaas markii hadda ilaa hadda markaan wax samayno qolo ma rabna inaan cambaarayno waxaan rabnaa inaan ummadda u dhexayno dhexdhexaad noqotaan wacyigelin bis bulsheeyo axmed naaji dabcan waxaan u malaynayaa waa inaan intaas ka kaa dhagaysto anuu iska fariisto su-aal aanan ku weydiinin oo marba mid aan ku tuurno laakiin dabcan waqtiguna nooma saamaxayo aad bayna mahad iyo sharaf noogu tahay inaad barnaamijka marti noogu tahay oo taariikhda faraha badan ee Soomaaliyeed aad berisamaadii dib inta noo celiso maalmo qurux badan anigii dadku daawanayaba aan filayo inaan qalbiyadooda dadka culayna caawa haddii aan marka dhinaci banaadiriga aado heesa badan oo banaadiri dabcan aad kaalin ku lahayd riwaayadaad samaysay tiyaatarkii magaalada Muqdisho wuxuu ahaa meel heesaha banaadirigu inta badan ka muuqdaan bulshaduna aad looga jecel yahay marka haddii aad dhinaca iga waranto iyo heesihii aad ka samaysay ama riwaayadihii adiga aad samaynta badan aad ku lahayd aad iyo aad oo heesii hirgalay waxaa ka mid ah maaragtay حق مسرحية عن سميجنا عيران كيجنا مي ديارك إس دياران كيني جني مركو عاكم إذا يسا وبنادي الرواية عن كفر من التياتر كا وحياة جد نقش الموجي اللهم نحريس بهذا مقاسي مقاديس تبدأ عيل ورابنا عيش عيل كبيرة كسوق على هنا
haddaad maqasho iyo biyaa keen ciddaa mane iyo biyaa keen ciddaa oo mane hawees ii cayaa dhaafe reerka soo jiide iyo biyaa keen ciddaa oo mane hawees ii cayaa dhaafe reerka soo jiide soo carfo haysa cirka waa sooci raamiyohay iyo biyaake ciddaa oo mane hawees ii cayaar dhaafe ceelka soo jiri kanaa ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa heesa badan oo oon qaadi jirnay oo hiddaha iyo dhaqanka ee banaadiriga marna kow waxaan qaadi jirnay aniga iyo caasha cabdo oo hadda maraykanka joogta hadday maqlaysa waan salaamaya مرنا دون جيلاني لكن عاش عبد الكوري القاضي كبعد فاضل مقاسم حسين روايدها عندي أنا قاعدين الله نحرسته. مركا روايدها مركا دقيسين أنت بدن أديكو وح روايدات سمي جرتو روايدها ما سمين جرت مساعد. مركا هو وح روايدها وحن كبرتي أويس جيد ودين ده الله نحرسته رياضة نص بيجرين. إيو شيخ عدن اللي ديه جرى الله نحرسته. إيكر شيخ عليو من اللي جري أيها وحكى صوب برتي تضالين على مليحان علي عبد الرحمن منصر قاسم هيرود أحمد الشريف يوسف هذه مركا تيك روادي كبور رئيسة وقعت سميس روايدها عن بن أو بدنا ينون رجع ساهرته وحن كصوب برتي عنيا تضالي أويس جيد عو الدين إيو مقعيس علي عثمان دروق إيو يعني رجع سنة بي يشوف فائدين حق بنادر جا. سيونك سن. مركا وعاكم إذا يسا بنادر لقاك. دايما ذي جديدة يدور متكشا يقول صدرتا دتكادي. دايما ذي جديدة يدور متكشا يقول صدرتا دتكادي. دب حليبو داري هذا أنا كدورت دعوة هينا وهذا ميساي دب حليبو داري هذا أنا كدورت دعوة هينا وهذا ميساي هسان هدايد هستان يا قاضي مركي وجوه الرئيس أنا يا عاش عبدو قاضي كبعد يعني فاضل مقاسم سام بنادرية لكن بنادرية أن معرفتي أيام ربنا إن دhinacaan waa wadnay dhinaca kalena waa wadnay yani dhaqan kulli inaad labadii dhaqan bulshadii kale Soomaaliya dabcan xamar deganay halgees markii noo keenay waxay noo keeneen ayagana saafi fiican oo hidiyo kale iyo kulli dabcan heestan hidiyo intaanaan heesti Djibouti u gudbin waaniga isku qalday oo ku yiri Djibouti way ka timid laakiin waxaad igu tiri dhinaca iyo halgees waayidii ay nooga timid hidiyo anaga tan Djibouti gaar waa gartay marka heestan hidiyo haddii aad bal marka qaabkii ay u dhacaysay iyo laxankeedii iyo haddaad hidiyo waxaan u yimid walaalaha hargeysa anoo keeneen runtii yani anagana kabankaan u tumi jirno riwaayad bay keenaysa seegir yiraaho marka waxaa qaadi jireen kula allah naxariiste iyo maandeeq iyo baxsan iyo kuloo qaadi jireen samay yooy hidi axidi يويدي لاحيو هنغادي هربي لاحيو هنغادي إلا عبي بحو هندادا يو هدانا ويا يو هكادي يويدي دي يويدي أيدي يوي ويا يو هكادي هلي ويا هكذا هوين بانهو أبغادي هيليو مثنهو مقدار هيليو يدي أحيدي دابا مركي انت استرا وحان يقول مقالة إنه يقول الله يقال لير هرقيسي إيه شيئا هستان وحيات سياسي مركو إنجليزكا وتلنجري هسكا توصل
بدين حرية لنا قبل ما لنا هربي لا عيوهن قضي اللعب يبحوها عند هدنا وايو وحبا يبحوها هل وايو هكذا هوين بانو هيري مثله هو مقالو وحيل هذا سنة يددك كعس سانكم مغلي أصلا عزلي بلقي ترى هيري مثله هو مقالو أسأل جواب أمرك كل عولي جري أوذا ملذو وردالا أوذا ملذو هما قاقبي هركاعي هوشادا نصوهر كانوا يوم يدي عهدي يروح كولا قيب سادا هوشان كولا قيب سادا وهرات كان كولا خوا يعني وان كولا هيا يا ذات يا قاجيني وقرتي احمد ناجدان كويدي دينعا هيسان ودبعا كو بنادريغنا قار كا ويدين دونا لحنك هدان كويديو قابكا اد سمينيسي dabcan dad badan waxay tilmaamaan in laxan la sameeyo ayaa ka adagba in miro la abuuro marka arinta hadaad nooga waranto sida kala iyo noocyada kala gedisanad laxanka u sameyn jirta heesaha laxaniga waxa loo sameeynaa hadba sidii erayada lagu soo gudbiyo ujeedooyinka ay ka hadlayso hees waxaa jira caashaq hees waxaa jira hees arooseed xaflado heesa gubaabin ama dhinac kasta askarta lagu gubaabinayo military hees dalka lagu gubaabinayo hees caruureed hees wacyigelin ah hadda mirihii lagu qoro ujeedaday ka hadlayso ayaad adiga laxniga saaraya xamaasad haddii tahay iyo haddii mid jaceyl tahay marka erayada horta noola qoraa abwaanka erayadaas kuu qoraya markiis kuu qoro waxaa markaasaa lagu dhiibaa waxaa isku leeyahay intaan waa beedka koobaad intana waa jiibta koors baa la dhihi jiray oo noqnoqoshada jiibtaa la yidhaha oo markasta soo noqnoqonaya beedka labaad haddana jiib beedka saddexaad haddana jiib laxniga markii noola dhiibo gurigaad u qaadanaya adiga ama karigaada idoo meel buuqba ku samay kartid haddii hees hore samayso u ekaado waxaad geynaya guddiga oo la xamiista oo aniga iyo gurub ka mid ahayn heestan waxay u egtahay hees hebel qaaday waa inaad ka soo bedeshaa maantase waxaa jira wixii dhan baa isku eg wixii anaga samay jirnay kii kaas qaaday erayo unbaa laga soo bedelayo cid waxay u sheegto dadkii waa dha'yihiin fanaaniin badan baa soo baxday codkooda fiican wili weyn wixii erayadii unbaa laga bedelay laxniga waa sidiis iyo muusigii kii unbaa ku soo noqonaya marka anaga waa kala saari jirnay marka laxniga waxa hadba heesta waxay ku turjumayso ayaan laxniga saari jirnay haddii hees wadani tahay oo dheer oo gadgadoome marna arko calaa qayb markaad hadashid qaybta kale inaad rilimka bedeshid haddana qayb saddexaad si ay u noqonin manoolta dhigto dad ninka dhigtiis inaa halkaas zirbaan un ha inaad wax weyba sida heesayga hadda dambe aad maqashid haddana heesta wadaniga ahi dabcan sida hadda hadalkaa ka dareemaya jacaylkaa isku si laxankeeda looma raadinayo oo kale matalan way kala duwan yihiin way kala duwan yihiin marka laxamiista waxaan qabnay madax dad oo kala erayadana kala shaandheeyo dadna laxamiista la jooji laxankan wuxuu ogyahay mid hebel heesay heesaha gadgadoomo marka laxankoodu isbadbedelo bilmatalan kuwa wadaniga ahayo kale aad anaga sameeyeen ha wax way qeybaan sameeyeen markaan qeyb sameeyno hal qof heesaya qofka kale fanaanka markuu soo galo rhythm kale aan u sameeynaa si kaas u ekaanin hadana qof saddexaad markuu galo hadana rhythm kale aan u sameeynaa durbaankana si kale u dhacaya si yani ninka ka xiisa go'ay ninka na dhageysanayo inuu wixii un soo noqonayo waa laga daalaya heesaan xusuusta marka matalan kuwa wadaniga oo kale dhaadheer oo laxamada aad saarteen waxa kamid ah heestii cabdi maxamed amiin uu sameeyay taariikhdu dadkay bartaa dunida waayaheeda ha taas cabdi maxamed allah naxariiste asaa sameeyey cabdi maxamed waxa waaye nin allah naxariiste nin cajiib aslan wuxuu ahaa erayada uu keenaya eray aad u culus u ahaa taariikhda حسن تاس تاريخ جدك برزعنا سبيل الحريق فنانين بدن وكقرب قال لها بدان حسوس تاريخ جدك برزعنا دنيا ويا هيدا
taariikhdu dadkay bartaa dunida waayaheeda ninna ma doonto ninna ma diido ninna ma doonto ninna ma diido runtayda xad ku haysaa dadow xasuus intaan waaya marka jaa intii yar haddaad garaacdaba codkiiba waa isbedel maaragta isla markii labadan iska bedel aad iyo aad marka waxaan rabay xamudow heestii hidiyo hidii waa tii aan ku dhahay siyaasad bay ka hadlaysay si lagu yiri aniga taas lamidaan sameeyey oo xilliga maanta haddaan injarka hidiyo hidii oo hadda xilligan oo dalkaagime soomaalay dalkaagime oo dadkaagu xaggee jiraan haddaydaanisu diirnaxayn noloshibaad ku duugantiin oo maxaa dawarsigaa ku baday iyoy idiidiyoy oo maxaa dawarsigaa ku baday waa tahay waxaan filayaa daawadayaal heestaas inaad si aad iyo aad kaga bogateen oo dabcan heeso kale oo fara badan oo wadanayaan dabcan Axmed Naaji Sacad aad buu u qaaday waliba xilligan dambe ee guwaabinta Axmed Naaji Sacad markasta oo aan dhinaca Banaadirga soo aado wadaniyadii baad igula laabanayso wadi celinaysay waxaan jeclahay marka heesaha caanka ee aad qaaday oo dabcan aadka loo yaqaano waxa kamida cadday ma iiga carootay sidoo kale waxa kamid ah ganiyay gafkii aad gashay iyo heestii waliba afka maayaad ku qaadaysay kijeelame jeelahay haddaan intaa ka imaado marka heesahaas hadda aan tilmaamay matalan cadday ma iiga carootay iyo ma heesa adiga kugu saabsan ay ahaayeen oo si gaar ah adiga saameyn ma riwaayadan ka sameeyay waxay ahayn heeso riwaayadan ka sameeyay oo riwaayadaas ayaa la jiray ay ku habooneed way saaxiibadeed badan bay ay shaqeey jireen oo dad raafi Allah u naxariiste Cabdulqaadir Nuuraniga inta jooga iyo وأنا فكرته ولا سنابسن جري هسا مركان سميجن حتى أنا كجيلا هسان أو ماما إذا كويسني نن أو معركتي يركو شيء علمي وحالينا مصطفى حاجة علمي أوجه جدا أساكن هو كان عندنا موسيقى أمبان وسمي وحي في عندنا وانا سكاشن جري مثل هذا الجنيو كلا مرها يا جنيو أنا سمي مرها هذا سمي مرك وحشة كامي كفدي سي مرك الوايد دون بيكون جفتهم هذا من مرك جنيو كلا وما شاء الشيء كقوذي من قريب وهو بقرب هريني جيت من عليهن أبدا قرتي محاكو قرا وحما إيقا قالي قربتان أبدا سوقيستي قريق فيها سميسيا جلالا كذبتاي تعوضال هذيها استقولي وابلت يا رياضة أديات هذا ما الله ورعليس إسلام سجلنا أديات markaystan riwaayadii ku jirtay riwaayadee Soomaaliya Sirjacayl Sirjacayl waa tahay Axmed Naaji marka dhinacii masraxaaga hadii aan u imaado oo dabcan gabagabadii barnaamijkan ku sii siqaynaa hadaan heesaha kale fursad u helno soo laaban doonaa waxa lagu tilmaamaa in aad tahay fanaan ka duwan fanaaniinta Soomaaliyeed markay timaado dhinaca masraxa oo markasta uu heesayo ama heesoo bandhigayo muujiye masraxeed qurux badan ka fakara marar badan naqshada iyo dadka la heesay qaabka noocaasa farsamadaas horta asalkii hore sideed ku baratay waxa way markaan anigu oo calanka la saaray lixdankii wixii ka dambe waxaan bilaabnay fanaaniinta xorriyada markii la qaatay dawladaha caalamka ayaan waxa la yeelanay xiriir thaqaafi
isdhaafsi dhaqameed marka waxaan tegi jirnay festivaalo waxaan tegi jirnay barnaamijyo dibadaha aan ka qayb geli jirnay waxaan muuji jirnay dhaqanka iyaga marka waxaan ku Suudaan markaan tagno Itaaliya markaan tagno Masar markaan tagno Ciraaq markaan meel kasta markaan tagno waxaad xataa Itoobiya loo dhow markay wax soo bandhigayaan dharka waa qurux badan yahay yani meeshay wax ku dhigayaan Talyaaniga saas oo kale Masar aniga meeshaas waan yaabi jiray anaga waxayna isdhacyaa maxay tahay kuwan man ka liidanaa baan dhihi jiray ya xamar markaan nimid oo madaxdiiba madaxweynayaasha Afrika noo imaan jireen isdaba joog madaxda Masar imaan jireen marka intay imaaninbo iyo October iyo markii la sameeyay xaflad iyo waxyaabaha iyo duuliye kooda duuliye waxaan isku aadano waxaan rabnaa inaan qurxin masraxi aan qurxino wasaaradda aan qorin jirnay maxaad u baahantiin waxaan u baahanahay daahas in la bedelo dharkaas aan u baahanahay qalabkaas aan u baahanahay wax wariba wasaaradda madaxtooyada u dhigi jirtay waxaan oo keen jiray ragii markaas Maxamed Xuseen suuqan tagi jiray wixii rabno wasaaradda waa furin jirtay oo lagu furinayo qurxinta masraxa iyo nalaha isbeddelaya rag oo aqoonna waa keen jirnay rag oo najaarin oo mar aragti farsamo yaqaan waa soo kareysanaynaa sidii waxaan ka soo barnay dibadaha markaasaan qurxintii siin u galay ilaa hadda waa wada xataa burburka markuu dhacay anigoo waxaa sameynin heesma fulinayo waxaad sameey jirtay meel kasta laga keeno cid maalgelisa male wiilasheedii gabdhaha waxa ka shaqeeyaan dibadda soo dhiibaan le hees baan sameynayo aan qurxina marka adiga heestu ku dhadhan ku yeelan mayso iyo macaani haddii aadan u helin dadkaas qurxin haddaadan helin marka kulli waxaan ku sameey jirnay xamar dawladana waa gacanayna sii jirto wasaaradda warfaafinta iyo madaxtooyada waa gartay ka qaataan Axmed Naaji marka gabagabada marka aad aragto qof dhalinyaro oo fanka xiiseynaya oo jecel inuu mustaqbal ka gaaro jidkee baad isleedahay jidka ugu habboon uu ku gaari karo waa kee jidka uu ku gaari karo waa ama gudaha joogo ama dibadda joogo waa inuu horta dadkii ka horeeyay maanta computer baa jira wax inuu horta galo oo fanka dhanka wanaagsan ka dhageysto iyo inuu meel raadsado nin muusiga bari jiray ama askarta anaka wixii muusiga qori jiray booliiska waxay ahaayeen qolada oo Bambeega Cabdi Cali Soolaan naxariistay Muuse inay dadkii muusiga yaqaanay oo kasoo karoon kii rabo inuu muusiga barto inuu tago yiraahdo oo kan maxaa yiraahdaa organ xarafkan maxaa yiraahdaa oo itus music itus gabar aan wiil hadii tahay horta vocal inay bartaan codka si codka koreeyay loo qaada codka hoose horta waa inay dadkii khibrada lahaay markay ka baagan deegaan dhowr jeer ay dhageystaan fanaaniintii ka horeeyay inay si habkay u qaadayaan habkay xarakada u sameynayaan habkay music u raacayaan muddo aniga saas ahayn fanaaniinta raacay jirnay markaan 5 sano amal raacnay ayaan bal halees bilaaway inaan qaadno marka ayaga waxay rabaan dulba hadda inay soo baxaan nin oo computer haysto studio oo xoogaa iska qaato oo temper durbaanka xataa qofta lama soceyso qaad umbuleeyahay durbaankaas oo sameynaa soo xoogaaga kaga furto wiiq waxa isku xirayaa codkii baa la jiijiidaya oo lagu fadhiisanaya hadda keentid qaarkoodii aad u tuntid live ma yeesi karaan ayuu computerkaas ay tagin marka waxaan dhigaa dhalinyarada gudaha ama joogto ama dibadda joogto horta fanaaniintii oo ka horeeyay oo meesha joogan inay raacaan oo walaaloona tus xeebi ma jirto adagana in la caawiyo waayaga naftood in loo furo iskool dawladdu waxaan ka codsaday inay u furaan meel oo la baro maaragtay anaka iskoolkan ku jirno ayaa macallin muusik ima jirin bari jiri marka ayagana in loo furo hadda dawlad badan aan xiriir la leenahay ina dawladaha badan carabta ama Turkiga ama waxaan aqoontooda la in lagu muusikada in loo furo ninkii rabo inuu barto ninkii rabo Axmed Naaji haddii aad aniga iyo dadweynaha ku daawanaya heesta noogu soo gabagabayso oo ka codsano waliba hees dhinaca banaadiriga heesteed noo soo xuri lahayd adiga idinka ogolaa aniga hees badan banaadiri aan leeyahay mid kamid noo soo tii adiga aad leedahay dadweynaha iyo barnaamijkanba way u wanaagsan tahay inaad soo tabiso
waxay jecel yihiin dadka caraf waa xumaada ceeb male xariiri waaye cirka iyo dhulkee cadeemidiga carootee calaf waa xumaada ceeb male xariiri waaye cirka iyo dhulkee cadeemidiga carootee calaf waa xumaada ceeb male عذاوليني حيكو علون فيوي إنا نعروني عدنا إيغا عرفتي حرير وهي عركاي ودلكي عديني إيغا عرفتي عرف وهم هذا